السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان waa salaamaya asxaabta channelkayga ku xiran. Waxaan leeyahay soo dhawaada gacmo furan, qalbi furan. Asxaabi maanta waxa idin wada dhacdo la yaab leh ama qiso cajiib ah. Dhacdadan ayaa waxay ka dhacday wadankaas Hindiya, meel la yiraahdo Kerala. Qisadeenu maanta waxay ku socotaa gabar Thomas la yiraahdo. Maxay ahayd Thomas? Thomas waa Tuma. Thomas waxay ahayd gabar single ah oo aad iyo aad u cunto macaan oo cuntada karisadee maasha Allah. Yani dadka meeshaas degan dhan aad looga yaqaano. Waxay waliba aad u karin jirtay oo cuntadeeda ugu macaan cuntooyinka waxaa ka mid ahaa bariis biryaniga. Sidaan wada ognahay bariis biryaniga waa cuntada ay ugu jecel yihiin Hindida ama cuntadooda marka yani ugu muhiimsan bay ka mid tahay. Qoftaaneeto waxaa soo doonay oo guursaday ninka meeshaas ay joogtay ugu lacagta badan oo ugu hantida badan oo yani beeraha yani warshadaha yani hanti badan oo muuqata lahaa ayaa guursaday. Waxaa dhacday qoftan inay ku fikirtay in yani hantidaas siday ula wareegi lahayd. Waxayna adeegsatay sirteeda oo ah inay aad u cunto macaan tahay. Sidee bay u adeegsatay waaye? Waxay sameysay yani waxay waayada guursatay oo ninkan oo ku fikirtay inay macaan yani hantidiisa dhan la wareegto. Waa ogtihiin qof kasta wuxuu leeyahay family, hooyo, aabo, walaal, wax walba leeyahay. Marka qoftan waxay guursatay 2002gii. Waxay ka bilowday sheeko oo markii ugu horeysay ee dishay oo cuntada ay sun ugu dartay bariis biryani macaan tay gurigeeda ku casuntay ay siisay. Waa ninkeeda hooyadiis ama sodohdeed. Sodohdeed ayay cuntada sun ugu dartay. Maamadii sidaas ayay maaragtaa ay ku geeriyootay. Lama fahmin. Cidnana kama shakin. Waxaa kaaga daran qoftan waa qofta loogu jecel yahay reerka. Waa qof yani aad loo jecel yahay oo aan laga filayn waxyaalahaas. Cidnana maaragtaa arrintaas kuma fikirin inay maamada sun ugu dartay oo sidaas ay ku dhimatay maamadu. Yey ku xijisay 2 sano kadib si aan loo fahmin kaartooley waayo qoftaaneeto. Si aan loo fahmin ayay waxay ku xijisay odagii yani sodogeed ay sidoo kale hadana ugu dartay. Yani qoftan cuntadeeda aad loo jecel yahay way cunto macaan tahay. Qof kasta cuntada u kariso ama u cunto yani horuu maaragtaa yani maasha Allah ka asturaaya. Waxay suubisay bariis biryani ayay waxay ugu wada dadkaas oo dhan waxay ku sixirtay bariis biryani. Waxay ugu wada dartay yani sun behaysataa suntaas ayay ugu dartay. Odagiina wuu dhintay. Adiga muddo dhowr sano kadib ah waxay sameysay ninkeedii ayay hadana sidoo kale ay sunta ugu dartay cuntada. Asna waa dhinta. Meeqay maraysaa 3 qof. Muddo yar kadib waxay ugu dartay sun cuntada u yeertay guriga. Wuxuu yiri yani ninkeeda adeerkiis ayay guri ugu yeertay. Dhowr jeer bay waxay maqashay meelaha asoo ka dhahaya. Waxaan la yaabanahay familkaas waxa xaafada ku wada noolaa hal mar dilay oo si waqti isku sanado isku xiga dilay oo qoftan ayada waxba u gaarin. Yani su'aalo maskaxdiisa ku soo noqonaya ay meelaha ka maqashay. Way u yeertay. Ayada qof kasta ay maqasho oo arrin inuu wax soo fahmaayo way dishaa. Waxay sameysay Thomas waxay ku casuntay odagii yani odageeda oo markaas dhintay ahaa yani adeerkiis ayay casuntay. Wuxuu yiri ani waxaan la yaabanahay arrintaas ay u dhacday yani alaabteedii ay karinaysay yani cuntadii macaaneed bariis biryaniga ayay ag dhigtay wayna ugu dartay. Sidii ayuuna odagii asna ku dhintay.
asagoo yacni aan samayn baaritaankuu yiri waan samaynayaa ilaa wuxuu ugu yimid markaas maalinkaas inuu dhaho baaritaan ayaan samaynayaa arrintan arrin ma aragtaa wayna soo maqmaqashay meelaha asagoo ka sheegaya arrin macquul ah maahan dadkan wax dilay waa in lasoo baaraa yacni asagoo ku haya ayay maalinkaas cusuntay sidaas ayayna ku dishay yacni odaygeeda adeerkiis ahaa. maxaa soo haray waxaa soo haray odagaas xaaskiisii ayaa soo hartay yacni museygii ugu dambeeyay oo la dilay xaaskiisii ayadiina sidaasoo kale wax u faahfaahantay waa dishay iyadana sidii oo kale ayay birisbiryaani sun ugu darta yacni qoftan qof laga filaayo maahan waa qof la xushmeeyo la jecel yahay la ixtiraamo qof laga dambeeyo kala arag ah waaye yacni daa'iman waxaa dadka yacni khiyaama waa dadka laga dambeeyo oo la jecel yahay ayaa waxyaala aan laga filin kasoo baxaan. waxaa dhacday markay dishay xaaska yacni adeerka xaaskiisii markay iyadana dishay waxay ku xijisay yacni odaygeeda in adeerkiis xaaskiisa odagaas dhintay iyo islaantaas ugu dambeeyay ee dishay wiilkoodii naagta uu qabay ayaa iyadana maaragta xoogaa midhaa naag maskaxdeeda shaqeynaysa aheedo meelaha iyadoo kananaanale ayay maqashay oo dhahaysa yacni dadkan maxay u dhinteen maa laga fakaro iyadoo ku haysa ayay midhaa meelaha kasoo maqashay yacni si ay maaragtaa arrintaas u damiso waa casuntay sidii kale ayay u diyaarisay birisbiryaanigii si yacni loo lahaa maaragtaa sunta yacni qofku waxaa la yidhi cunto bariiskeeda markuu cunayo isma oga xataa yacni suu u macaan yahay yacni waxaan ku leeyahay waa islaantiina yacni gabadhii uu qabay yacni odaygeeda in adeerkiisna sidaas ayay ku dhimatay. yaa soo haray waaye waxaa soo haray shaajo nin la yiraahdo yacni muddo kadib markii cabbaar la joogay oo yacni muddo la joogay cabbaar ah ayay waxay tiri u yeertay maalin maalmaha ka mid a ninkan shaaju waxay tiri shaaju markaas waa ninka keli ah oo dhaxlaya hantidan ayada iyo asaga basaa dhaxlaya qof kale ma dhaxlayo ayay u yeertay markaas xaaskiis ayaa markaa muddo yar u dhow dhimatay oo iyadu ay dishay way u yeertay waxay ku tiri niyahow waa hantidan aniga adigaa dhaxlayna inaa hantidii uu ka dhintay in adeerka aad ka warhaysid oo aniga yacni dhaxalka aan u haysta xataa inta aniga igu soo aadantay aad adiga waxa dhan maamushid miyaada u baahnayn haa waa u baahanahay yacni i gurso ani wuxuu yiri gur diyaar hadda omayhi xaaskaygii dhimatay ayaan jeclaa muddo yar baa kasoo wareegatay taas ani yacni ma samayn kari qof hadda arrintaas diyaar u ah ma ihi buu yiri macquul maahan bay tiri arrintan haddii aada yacni xoolahan iyo waad ujeedaa iyo hantidan waxay ku fiican tahay in aniga aad isguursano hantida iyo xoolaha aan wada haysano ayay ku fiican tahay ayay kaartadaas ayay samaysay adigu markii dambe almuhim ninkii way ku qancisay wuxuu arkay inay munaasib arrintaas tahay sidii ayuuna Thomas ku guursaday maxaa dhacay waaye goormaysa fashilmaysa Thomas waxaa dhacday in ninkan uu yacni aad iskaga ilaalin jiray qoftan uu xoogaa yacni maskaxdiisa ay kusoo laalaaban jirtay sidee yacni dadkii u dhinteen aduu maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu yiri qof yaha aniga maanta waxaan dalbaday in dadkii dhintay maaragtaa yacni ii sheeg lasoo saaro oo sababtii u dhinteen la ogaado waxyaalo badan baan dalbaday marka aniga aad baan u shakisanahay meelay wax ka jiraan ma garanayo waxa jira ma garanayo dadka waxa laayay intaasoo qof ma garan karo marka arrimahaas maskaxdayda aad uga buuxaya maankayga ku weyn aduu arrintaas u sheegay hadduu u sheegay asaga markaas wax walba uu fahansan yahay qoftan wuu ka shakisan yahay ogaan ahaan buuna arrintaas yacni
free dhaga hadal baa la dhahaa, uu ku dhaga hadlayay ayada si ay yacni bal waxay samayso markaas ayuu macnihii yacni ogaanayay. waxaa dhacday in ay maaragtaa qoftii iyada ahayd ay dee waa qof dakana galay oo u bartay inuu howlahan dadka dilay. waxay samaysay maalin maalmaha ka mid a adigu maalmihii uu arrimahaas ku dhaga hadlay ayay waxay samaysay maalin bay waxay ku tiri caawa yacni casho waxaan leenahay romansi ah, yacni caawa cawooyinkeena ha ka duwanaato, yacni ani adiga is casumayna waa kaas xilli early ah guriga imow, casho yacni wax kale ah ayaa noo samaynayaa. markaas wuxuu ku yiri haye waa yahay, asagoo baqsan oo isdhahaya caawa waa cawadaa bixi lahayd. adigu sidii ayay waxay samaysay yacni waxay u samaysay casho romantic ah oo kala arag ah, wax walba oo maaragtaa ay yacni kusoo jiidan karto ninkeeda ayay diyaarisay, wax walbay samaysay. adigu waxaa dhacday in maaragtaa uu intii ay cuntada diyaarinayso dhan meeluhu ka fiirfiirinayay waxay samaynayso, yacni meeluhu ka qashqashaayay. waxaa dhacday in ay cuntada markay soo diyaarinaysay ay jeebkeeda tasaa wax uga soo saartay. ilaahay micnihii meesha ayadaa qadar baa ka socota meeshan, ilaahay iyaduu kashiifayaa inay tay jeebkeeda wax saas uga soo saartay, inay maaragtaa cuntada ku dartay ayuu isha ku qabtay. bas wuu cararay ninkan, iyadoo wax diyaarinaysu baxay. booliska ayuu u tagay, wuxuu yiri qoftaan waa ka shakisanahay inay arrintaas samaysay, dadkii horena ayay soo dishay, marka maxaan sameeyaa? waxaa la yiri waxa kaliya lagu ogaan karo waxa weeye anaga waana soo wargelisay in ayada guriga ugu tagtid, cashada fariisatid, saxanka ee cuntada ay ku soo ag dhigto ha cunin, waxaad tiraahdaa adiga cun. hadday diido inay cunto ama cunto kale aa cuntid kuu diido oo kaa saxankaas kugu qasabto, ya albaabka anaga naga furaysaa baa la yiri, anagu banaankaan taaganahay. adigu sidaas ayuu nimankii booliska kusoo direen. wuu yimid gurigii, adigu miiskii wuu soo fariistay, saxnaa lasoo ag dhigay, waa saxankii lagu dili lahaa. wuxuu yiri aniga cuntadan yacni keligii inaa cuna ma rabo, kaale ila cun. waxay tiri aniga waa haystaa tayda. siyir may aniga ii bedel hootayda taada isii, may adiga waxaa jeceshaan kugu habee si special ah ayaan kugu sameeyey, macquul maahan adiga cun. mayuu yiri. adigu wuu ka diiday. waxaa dhacday in maaragtaa uu yiri hoo adiga cun oo afka gasho, way diiday. wuxuu yiri waayba aniga ii siinaysaa wax adiga aa u diiday inay afkaaga gelisid ani ii siinaysaa, yacni casho romantic wayaa tiri, yacni waa casho maantay ani aada khaasanoo ah, sidee buu yiraahdaa aad u cunayn cuntada ani aa cunaayo, cun buu yiraahdaa. way diiday. adigu alxaasil markay diiday oo iyaduna ku qasbayso cuntadii ay usoo diyaarisay ku qasbayso, ayuu tuu ninkan booday, albaabka furay. waaba nimankii booliska ahaa. waa la qabtay. qoftan ismaba waalinba, waa qaratay dembigii. waxaa la yiri intaas qof maadaa dishay? haa bay tiri, hebel cuntada noocaas aan ugu daray. kulligood waxay sheegtay inay cuntada biryaaniga ugu wada dartay sunta, because waxay tiri waxay aaminsanaayeen cuntadayday jeclaayeen, bariiskayga aan kariyay jeclaayeen, ayaga kaliya maahe magaaladan oo dhan ayaaba dili karaa. laakiin anu hadafkayga wuxuu ahaa kali ah inaa hantidaas aan keligay yeesho oo dad kale is ila yeelan. adigu sidii ayay maaragtaa niman yacni askartii ku kaxaysay qoftaas, ayadoo dembigeedii qaratay. maxkamad ayaa la saaray, way qaratay. waxaana lagu xukumay intaasoo qof maadaama ay ku maqan tahay 6 qof. qofkii 7aad ayadoo dilaysana yacni la ogaaday, waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. yacni qoftan reerkan aad ayay u aamineen oo aad ayaa loo jeclaa oo lagama filayn. daa'iman waxa dadka yacni lugooya ama dadka wax aan filayn sameeya waa dad yacni aad loo aaminay oo yacni kalsooni zaa'ida lagu qabay. qoftan waxa dhibkaasoo dhan ay u maraysaa caqliyarideeda waxa weeye waa hantidaas ay yeelatid, ayadoo hantida ay jirto sababo badan ay ku yeelan karto, maadaama ninkeeda uu hantida u lahaa ay jirto asbaab badan ay
يعني aysan hantida meelba ka jirin ayay haddana maxay samaysay waxaasoo yani dil ah ay samaysay waxaasoo dembiye gashay alxaasil iyadoo toogasho lagu xukumay 2000 hadeer 19kii ayaa toogasho lagu xukumay welina lama xukumin xabsiga ayay weli ku jirtaa yani weli dilkii laguma fulin ayaan ka wadaa waa la xukumay maanta qisadeenu ama dhacdadeenu intaas ayay ku eg tahay intaa qisadan qisa lamida iskaga imaan doono waxaa idin leeyahay waa walaashiin Asmaa oo idin dhahaysa في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.